السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داوديال ملك سو joogtaan idilkiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeeni wararka iyo warbixinada dunida qaybtiisa labaad oo aad maalin kasta ka daawataan shabakada wararka ee Warqa Tube. Maanta waa maalinimo Talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 19 bisha Maarso sanada 2019 sidii caadada ahaydba qaybtan waxaan ku lafa guri doonaa wararka xilligan la taagan yahay dunida ugu waaweyn iyo qodobo kale oo xiiso leh oo falanqeyntooda aad naga sugayseen daawada haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo kamid noqo asxaabta subscribe gareeyay channelkeena Warqa Tube isla markaana furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela wararka iyo warbixinada ugu waaweyn caalamka iyo Soomaaliya aynu soo gelino channelkan shabakada wararka ee Warqa Tube. waxaan ugu mahadcelinaynaa daawadayaasheena iyo bahda nagu tixanba sida had iyo jeer ay noo dhiirigeliyaan isla markaana ay u sii share gareeyaan oo ila wadaagaan asxaabta kale barnaamijyada iyo wararka aynu halkan soo gelino. waa tahay aan ku bilaawno qaybtan Ilhan Umar muslimiinta iyo Yahuudda Mareykanka ayaa waxa ay yeesheen kulan aad u xasaasi ah oo markaasi looga hadlayay xaaladihii ugu dambeeyay siyaasadda Mareykanka ka taagnaa gaar ahaan qadiyadihii dhawaan soo cusboonaaday ay ka hadashay xildhibaanad Ilhan Umar. waxa uu kulankan ujeedkiisu ahaa sidii ay fursad isugu heli lahaayeen muslimiinta iyo Yahuudda ka wada tirsan xisbiga dimuqraadiga ee qaarkood ay yihiin xildhibaanada heer federaal ee golaha markaasi wakiilada ee aqalka hoose ee baarlamaanka wadankaasi Mareykanka. waxaa la sheegay in kulankan oo dhacay xalayto siqdii dhexe ay markaasi ku yeesheen qasriga baarlamaanka wadankaasi Mareykanku ay leeyihiin xildhibaanadan oo ay ku jirtay Ilhan Umar iyo sidoo kale Rashida Tlaib oo ah gabdho muslimiin ah oo baarlamaanka wadanka Mareykanka dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay 2018 ka mid noqday. waxaa sidoo kale dhinaca kale xisbiga dimuqraadiga ee gaar ahaan dadka Yahuudda ah matalaya xildhibaano ka tirsan xisbiga dimuqraadiga kuwaas oo iyaguna kulanka joogay. waxa kulanka lagu lafaguray sida ay muhiim u tahay in laga shaqeeyo midnimada iyo isu soo dhawaashiyaha bulshooyinka labada dhinac ee wadanka Mareykanka ku nool iyo gaar ahaan siyaasadaha dhawaantan ay markaasi carabka ku dhufanaysay xildhibaanad Ilhan Umar oo ah gabar Soomaali ah. xildhibaan Dean Phillips oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga kana soo jeeda bulshada Yahuudda oo kulankaas ka qayb galay ayaa waxa uu sheegay in kulanku uu ahaa mid miradhal leh isla markaana muddo saacadaha la isdhageystay oo laga hadlayay danaha labada bulsho iyo waxa suurtagalka u ah sidii hore loogu socon lahaa. waxa uu sheegay in kulanku uu ka marnaa siyaasad isla markaana uu ahaa kulanku mid ay isku arkayeen dhinacyadan muslimiinta iyo Yahuudda loogana arrinsanayay waxyaabaha iyaga danta u ah iyo sidii qaranka Mareykanka uu hore u sii socon lahaa. xildhibaanad Ilhan Umar ayaa arrimahan markaasi farta dartay ka gadaal markii ay dhaleeceysay siyaasadda Mareykanka ee maamulka Israel. waxaana ay sheegtay in siyaasiyiinta Mareykanka ay wadan kala daacad yihiin oo Israel ay siiso dhaqaale fara badan sidaasna ay Israel ku difaacaan. marka arintaas waxay abuurtay xasaasiyad weyn. haddana waxa ay maraysaa in xildhibaanadii labada dhinac ee kala metelay muslimiinta iyo Yahuudda ay is arkaan oo ay iska wareystaan. kulankii xalay waxaa lagu lafaguray sida ay muhiim u tahay in labada bulsho ay ugu noolaadaan nabad iyo wadajir adduunyada inteeda kale gaar ahaan wadanka Mareykanka. waxaana u muuqataa in isu soo dhawaasho aad u ballaaran uu labada dhinac markaa uu dhex maray inkastoo aan si dhiibli ah ama si qoto dheer aan loo ogeyn. bulshada Yahuudda ayaa aad markaasi ugu doodaysay in xildhibaan Ilhan Umar ay sameysay wax u muuqday Yahuud nacab inkastoo xildhibaan Ilhan Umar ay arrimahaas beenisay isla markaana ay dad badan oo Yahuudda qaarkood ay ka soo jeedaan ay la safteen xildhibaan Ilhan Umar. dhinaca kale xildhibaan Ilhan Umar ayaa maqaal dheer waxa ay ku qortay wargeysada wadanka Mareykanka ka soo baxa gaar ahaan wargeyska Washington Post la yiraahdo. waxaana maqaalkan ay uga hadlaysaa aragtideeda ku aadan sida loogu baahan yahay in laba qaran oo iska barbar shaqeysa ay yeeshaan Israel iyo Falastiin. xildhibaanad Ilhan Umar oo ku caanbaxday in aysan la galban sida ay u taageerto dadka Falastiiniyiinta ah ee laga gardaran yahay ee dulmiga lagu hayo ayaa waxay markan qortay article dheer oo ay markaas ku gorfaynayso wadiiqooyinka iyo talaabooyinka loo baahan yahay in la maro si markaasi loogu guuleysto in la helo laba qaran oo isku barbar shaqeyso oo ay leeyihiin Falastiiniyiinta iyo Israel. xildhibaanad Ilhan Umar oo xubinka guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka federaalka ee wadankaas Mareykanka ayaa waxa ay qeexday in muhiim ay tahay in awoodda oo dhan la isugu geeyo
sidii labada dhinac ee Falastiiniyiinta iyo Yahuudda ay markaasi u heshiin lahaayeen oo ay u kala yeelan lahaayeen laba dal oo markaasi madax banaani taam ah kala haysta isla markaana isku meel ku yaalo oo shaqeeya siyaasadda Mareykanka ee waayadan soo jiitamaysay ayaa waxay u ololeysay in laba qaran oo iska barbar shaqeysan la helo hase ahaatee tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu aqalka cad ee waddanka Mareykanka yimid waxay moodaa in arrintaasi ay isbedeshay madaxweyne Donald Trump ayaa la gamban sidoo uu markaasi u ayidsan yahay uguna janjeero maamulka Yahuudda waxaad la socotaan in uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in magaalada barakeysan ee Qudus ay caasimad u tahay dadka Yahuudda iyadoo la ogyahay in magaaladaas ay Yahuudda xoog ku haysato isla markaana ay tahay magaalo ay leeyihiin dadka Falastiiniyiinta xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa sidoo kale maqaalkeedan aad ka dheer waxay uga hadashay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaana ay sheegtay markaas loo baahan yahay in cadaalad iyo nabad ay siyaasadda dibadda Mareykanku ay ka shaqeyso sibay tiri loo hormaro isla markaana dunida oo dhan ay u aaminto qaranka Mareykanka xildhibaanad Ilhaan Cumar sidoo kale maqaalkeeda waxa ay ku sheegtay in loo baahan yahay in si dhab ah loo daweeyo boogaha saxda ah ee jira ee markaasi qoseeya qadiyadda Falastiiniyiinta iyo Israa'iil Falastiiniyiinta iyo Israa'iil waxay isku haystaan dhul waxana Falastiiniyiinta xoog looga haystaa dhul fara badan dhulkaas oo ay Yahuudda xoog ku haystaan gaar ahaan maamulkooda Israa'iil waxaa la sheegayaa hadda in madaxweyne Donald Trump uu hadda u ololeynayo in talaabooyin kale waaweyn uu qaado oo ku aadan qadiyadda Falastiiniyiinta iyo Israa'iil wiilka uu markaasi sodogga u yahay Jared Kushner la yiraahdo ayaa arrintan bariga dhexe u xilsaarnaa oo markaasi wadamo dhowr oo carabta ah ayuuna kala tashaday sidii arrintan loo soo afjaray laakiin Falastiiniyiinta aad ay uga careysan yihiin maamulka Trump wax wada shaqeynayna hadda lama laha waxaana ay u muuqdaan maalinta ka dambaysa in ay dib u sii siqayaan oo ay ka durkayaan inay aaminaan maamulka aqalka cad ee Mareykanka hadda ka arrimaya si kastoo ahaato qadiyadda Falastiiniyiinta iyo Israa'iil waa ay daba dheeraatay dunida oo dhan waxa ay hadda u arkaanba mid aan la xalin karin in ay tahay weli waxaa daawanaysaa barnaamijkeeni wararka iyo warbixinadii dunida oo idinkaga imaanaya shabakada wararka ee Warqa Tube la taliyaha xagga ammaanka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar ku qaaday hogaamiyaha waddankaasi Turkiga isagoo sheegay in ay difaaci doonaan maamulka Yahuudda John Bolton ayaa waxa uu meesha ka saaray in Turkigu ay markaasi u goodin karaan maamulka Yahuudda isagoo sheegay in Mareykanku uu had iyo jeer diyaar u yahay inuu difaaco Yahuudda waxaana uu garabka ku dhuftay hadallo dhowaanta ka soo yeerayay maamulka Ankara mas-uuliyiinta Ankara iyo Tel Aviv ayaa waayadan dambe waxa ay hawada isku marsiinayeen dhaleecayn iyo aflagaado toos ah iyadoo oo Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha waddankaasi Turkiga uu hadallo qalafsan hawada u soo marinayay ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu oo markii horeba daansaday madaxweynaha muslimiintu ay jecel yihiin Recep Tayyip Erdogan lama uu gamban waxaana uu sheegay in Benjamin Netanyahu uu yahay nin dhiig yacab ah oo markaasi leynaya caruurta Falastiiniyiinta ee dhulka reer Falastiin ee Yahuudda xoogga ku haysato ku nool waxaa hadda arrintan soo faragelinaya markaasi Mareykanka oo u hiilanaya Yahuudda John Bolton waxa uu leeyahay Turkigu waxba kama qaadi karaan Yahuudda inaga ayaana diyaar u ah inaan ka difaacno Turkiga iyo dalalka kale ee Yahuudda doonaya in ay dandansadaan Turkiga iyo Mareykanku waxa ay xubin ka yihiin ururka gaashaanbuurta NATO waxaana markaasi bariyadan dambe muuqanayay in labadan dal siyaasad ahaan iyo aragti ahaanba ay aad u sii kala fogaanayaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa ah hogaamiye inta badan difaaca dadka muslimiinta ah meel kastoo ay dunida kaga nool yihiin waxaana madaxweyne Erdogan uu markaasi ka soo horjeeda in dadka muslimiinta xuquuqdooda la duudsiyo lagana dhigo dad aan dunida waxba ku lahayn madaxweyne Recep Tayyip Erdogan khudbadaha uu jeediyo dhammaantood waxa ay noqdeen kuwo nabar ku ah wadamada reer galbeedka iyo Yahuudda u arka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan hogaamiye cududiisa xagga ciidanka iyo midiisa taageere ee dunida islaamka uu ku leeyahay si faafaysa Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha waddankaasi Turkiga waxa ku soo foolay doorashooyinka waddankaasi ka dhacaya waxaana loo badinayaa in uu ku guuleysan doono maadaama dadka reer Turki ay si aad u jecel yihiin hogaamiyahooda dhinaca kale daawadayaal markan haddaan fiirino waddanka Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman ayaa waxa lagu soo waramayaa in uu ka maqnaa kulamo muhiim ah oo muslimiintu ugu sareeyay boqortooyada ay dhawaantan yeesheen
dhaxal sugaha boqortooyada waddanka Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa lagu soo waramayaa in aanu soo xaadirin oo uusan ka qayb gelin kulamo xasaasi ah oo muhiim ah oo laga hadlayay xagga dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda oo boqortooyada waddanka Sacuudi Carabiya ay madaxdu yeelanayeen. waxaana la sheegayaa in arrintani ay sabab u tahay khilaafka dhowaantan The Guardian uu soo qoray ee ka dhaxeeya aabihiis boqor Salmaan bin Cabdilcasiis Al Sacuud iyo wiilkan Maxamed bin Salmaan la yiraahdo. majalada The Guardian ayaa isniintii shalay tahay soo warisay in boqor Salmaan bin Cabdilcasiis Al Sacuud uu ku dhawaaqay tallaabooyin xadidaya awoodaha uu leeyahay wiilkiisa, waxaana la sheegayaa in koox ka mid ah golaha wasiirada la siiyey awood dheeraada. bin Salmaan waa wiilka uu dhalay boqor Salmaan waxa la sheegayaa in labadii toddobaad ee la soo dhaafay uusan ka soo qayb gelin kulamada ay golaha wasiiradu yeelanayeen ee darajadoodu sareysay. waxa kulamadaasi ka mid ah shirkii laga yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaas Ruushka Sergey Lavrov oo soo booqday waddanka boqortooyada Sacuudi Carabiya. shirkaas ma uusan soo xaadirin. sidoo kale waxa la sheegayaa in shirar kale oo heerkoodu sareeya uusan soo xaadirin oo uusan Maxamed bin Salmaan iman goobta markaasi lagu gorfeynayay. si kastoo ahaato boqorka iyo wiilkiisa waxa la sheegayaa in xurguftan weyn uu ka dhaxeeyo, waxaana arrimahaas u sababa xaaladda cakiran ee markaasi kiiska dilka ah Uriye Jamal Khashoggi iyo dagaalka waddanka Yemen oo isku haystaan labadan mas'uul. Maxamed bin Salmaan waxa la siiyay awoodo dheeraad ah, laakiin boqorku wuxuu aaminsan in hadda uu ku takrifalay isla markaana loo baahan yahay in la gacan qabto oo laga joojiyo tallaabooyinka xadgudubka ah ee uu sameynayo Maxamed bin Salmaan. Maxamed bin Salmaan ayaa waxa uu yahay qofka ugu badan ee lagu eedeynayo inuu amray dilkii Uriye Jamal Khashoggi, taasi oo sumcad badan ay kaga luntay boqortooyada waddanka Sacuudi Carabiya. wadamada caalamka oo dhan ayaana ku dhaleeciyay boqortooyada falkaas foosha xun. qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. markana Iiraan, Xasan Ruuxaani ayaa waxa uu sheegay in uu markaasi baadi goobayo tallaabo sharci ah oo ay markaasi wax uga qabanayaan cunaqabateenada uu Mareykanka ku soo rogay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in dowladdiisu ay maxkamad horgeyn doonto kiis la xiriira saraakiil Mareykan ah oo la aaminsan yahay in ay ka dambeeyaan cunaqabataynta Mareykanka uu ku soo rogay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. waxa uu sheegay in maxkamadaha Iiraan la horgeyn doono kiisaskaas ka hor inta aan loo gudbin maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee ICJ. khudbad uu si toos ah ugu jeedinayo madaxweyne Xasan Ruuxaani shacbigiisa ayaa waxa uu sheegay in uu amray wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo wasaaradda cadaaladda in ay ka shaqeeyaan sidii markaasi xubnahaas dacwad lagu soo oogi lahay maxkamadna loo soo taagi lahaa. waxa uu sheegay in ay kuwaasi ku gardaroodeen Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan, isla markaana ay ka shaqeeyeen in Mareykanku uu dib ugu soo celiyo cunaqabateenadii hore looga qaaday Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. geesta kalena Ruushka ayaa xusaya 5 sano guuradii ka soo wareegatay markii ciidamada waddankaas Ruushka ay Ukraine ka qabsadeen gacanka Crimea. madaxweynaha waddankaas Ruushka Vladimir Putin ayaa ka qayb galay xuska 5 sano guuradii ka soo wareegatay markii Moscow ay ku duushay isla markaana ay qabsatay gacanka Crimea oo ay ka qabsatay waddankaas Ukraine. waxaana uu sidoo kale booqday badda loo yaqaan badda madow iyo meelo kale oo ka mid ah gacanka Crimea. Putin ayaa waxa uu furay 2 warshadood oo kuwa quwadda korontada ah, kuwaas oo gobolka Crimea siin doona awood koronto oo aad u ballaaran. Crimea waxa ay ku dib qabtay 5 sano ee la soo dhaafay korontada, maxaa yeelay korontada waxay uga iman jirtay Ukraine waxa ay ka jartay korontadii. sidaas darteed ayaa madaxweyne Vladimir Putin oo ka jawaabaya waxa uu halka ka hirgeliyay 2 warshadood oo kuwa tamarta ah, kuwaas oo Crimea siin doona quwad xagga korontada ah. ciidamada waddankaasi Ruushka ayaa bishii Maaj 2014 ku duulay gacanka Crimea, waxaana ay ka qabsadeen ciidamadii waddankaasi Ukraine oo halka ku sugnaa. Ruushku waxa ay ka qabteen Crimea afti ay ka qaadeen dadkii ku noolaa, waxaana inta badan dadka halka ku noolaa ay u codeeyeen in ay dib ula midoobaan raashka federaalka ah. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal qaybtii labaad ee barnaamijkeena wararka iyo warbixinadii dunida oo aad ka daawanayseen shabakada wararka ee Warqad Tube. barnaamijkan lamid inta dib u kulmi doono waa bahdii barnaamijka isku duwan oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.